ayada mugdi aan ay tusayaan marka aragtay marka nalka iska damisid because musqusheedana marwaxadeeda is very annoying maanta dhan korka ka qaylin because every time aan nalka daartid marwaxada ka daba daarmayso so adaa rabtid nalka inta iska damisid you can chill marka waxaan ay tusayay after that marka nalka iska damisid how it's gonna look like my shamaas is so tiny wax si fiican ma shidna marka inshallah wallahi it's very relaxing mashallah so try it guys okay hoya time I'll had musqusha hatta sign inta soo gadatid do not disturb hatta is mommy's time okay so dark I can see okay inshallah assalamu alaikum السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada ما شاء الله maantay iyo waxa waaye subaxdii waxyaalihii aan qabto markaan subaxdii soo kaco waxa aan suubiyo most of the time insha Allah maadaama hooyo leeyahay maarko iska taqaaniin inta ka horna videogan oo kale waa soo duubay oo healthy smoothie ما شاء الله healthy smoothie gaasna check it out oo saan camal waay marka maanta waxyaalo badan aan ka bixiyay healthy smoothie oo soo marka every time waxbaan ka bixiyaa waxbaan ku daraa maalintaas waxyaalo badan aan u baahanta mara ironka u baahanta mid vitaminiga u baahanta marba wax mar kasta waxaas ila shaqeynaayo ayaan ku darsadaa so today waxay ka shidan tahay green mostly green waa waxeena dhan okay guys maanta ma lagu daraayo fruit sidii hore oo macaankii no fruit allowed all the fruit is going to stay in there marka insha Allah it's going to be green hadda ka horna mar kale aan isoo suubiya u maleynaya marka maadaama ay morning cake waxyaalaha aan qabta ay tahay morning routine cake camal iska badh waaye marka insha Allah marka maanta waxaan ka bilaabeynaa celery ayaa greenka ka bilawnay waxa uu taqaanin celery is very healthy iyo waxa only aan greenka ahayn waxa waaye gingerka ma sha Allah marka gingerka waa iska jecelahay sanjabiisha alaag inaan iskaga daro marka waan ku darsaday maanta ayadaan ku darsanaya bad inta kaleeto waa al greenkaas u baahan tan waa fiiqa insha Allah ayadoo fiiqana ku dara maalin hore markaan isoo sheegay lin dhanaantan ku daray is also green marka lin dhanaanta qolofta ayadoo lahan ku daray dan oh my god it was qaraar qolofteedii qaraar ka dhigtay soo lemon drink marka insha Allah laakiin other than that it was very yummy iyo flaxseed keeni oo caadiga ahayd insha Allah markasta flaxseed yaraan iskaga dardarsanaa ama chia seed hadaa haysato hadda marka flaxseed aniga marka badan ma isticmaalaa I use the chia seed wax yar oo half maxaa dhahay teaspoon ka qaada halfkeed ayaa ku daray insha Allah marka halkaas ayaan ka bilaabeynaa insha Allah ila daawada iyo waxay aan maxay smoothie-gan hadaa cabtid vitamin u baahnid like you guys I told you already marka vitamin-tigi dhan oo natural waay wixii dhan naturalka ayada kuule celery-ga ku jiro avocado oo hadii like qof weight lose gareynayo kala aad tahay you don't need the avocado dafaadka cararaysid but you can do the celery spinach iyo kan oo kaleeto marka kan maxaa dhahay barbarooniga like barbarooniga sidiisa hadaa ku cuntid is very nice and healthy hadaa ku cunin sideeda camalna waxa soo binaysaa waxa ku darsanaysaa kanoo kale smoothie waa qarne if you don't like it asagoo sidiis u dhadhamay marka insha Allah kan marka hadii caafimaadka waxa ka badan midka oo red-ka iyo kan kaleeto kan greenka marka maadaama hadda red-ka iyo yaalo so I'm just going to use the green one wax yar aan uga darsanaya dad some people ma jecla but I like it ani asagoo ceeriina waa cunaa very yummy asagoo smoothie-gana ma maraan ku qarsada ma sha Allah so either way waa iskaga isticmaala maadaama green iska yahay marka let's wash together and see waxa isku shiidona hay'adaha okay let's start it marka waan boobsiinayay saa slow iigu noqon marka wax jarjarayo aan caajisin ma arkino marka flaxseed-ki wax yar oo half tablespoon ka ku dareysaa wax yariis I'm doing a little bit of the flaxseed iyo maxaa dhahay iyo hanigeeni ma sha Allah also we're gonna put meeshii sakar uga dar lahayd marka malabka ku darsanaysaa asaga ka caafimaad badan ma arkino so we're gonna put tablespoon of honey insha Allah intaas ay ku yaraataa so I put more kana adeeg way is like organic malab camal so it's a little bit hard neetu sakar saxaad so I'm doing the honey ma sha Allah marka laba qaado ama qaado iyo half whatever adi markaas macaanka soo aad u jeceshay ku xiranta hadii aad malab reero malab ahayn ama allergy ku tahay you can waxa isticmaali kartaa sidiisa asaga waa soo bi kartaa baan waxaan jeclahay lila bad inoo macaan yihiin
ka Soomaaliya aan sokorta iyo aniga saaxiibaan marka and then markaas waxa ku subsan kartaa soo sidiisa waa cabi kartaa hadda u baahna inaad sokor ku darsato haddii kalena organic sokor oo sokorta ka maarman you can use organic sugar marka insha Allah saas suubinay and then we'll shiidona marka ani sometimes I put 1% caano if I want to haddii kale tan biyaha aas caafimaad ahaan aniga waxaan jeclahay biyaha 1% waa iska kaana biyo camal anyway so waxaan ku darsanaa today biyaha ka dhigoonaa which I like the caano and some people don't like caanaha inay ku darsadaan but I prefer inaan caanaha ku darsado so intaas isku shiidanoona insha Allah inta hadda cabtid alxamdulillah ilaahay oo ku daaweeyo is very healthy you know ma u baahanaysid waxyaalo kale ma sha Allah so we're just gonna put it there okay marka afakaadada markii lagu daro waxay noqonaysaa ma arkino wixii dhan way isla degayaan ma sha Allah ee noqonaysa laakiin afakaada haday lahayn little bit oo jecesha inay biyo ku noqoto smooth camal ee sakaan noqon oo ama aan haduu ku hay ama thirst aad tahayna waxa ka dhigi kartaa afakaadada ka reebi kartaa marka ma sha Allah just gonna look at it it's very good it's my favorite ana wallahi maalinta cabo si fiican u shaqeeyo because every time ma laga gaarayo all the time fiiri waa fiiri cagaar ay noqotay iyada dhan cagaar caloosha dadka caloosha fadhiso kalena is very good ma sha Allah qaabka soo igu waxa u malaysay in lagu cabiro exactly dhaladeed marka kana kala iska qaata dhaladaan kale stroogaga iska gashtaa alxamdulillah waxay ku noqonaysaa ma arkino baraf daarta baraf ku darsanaysaa it's very healthy marka inta shaqeeyna meel iska dhig waa iska cabaysaa daarta caagaada dheer ama wax walaaba markaas aqaatida ku shubanay insha Allah marka my healthy smoothie waa ka soo try garay and let me know what you guys think ma sha Allah okay asxaabta soo noqo marka asxaabta maanta quraacdeedu waxa waaye yogurka oo caadiga oo Greek yogurka ma sha Allah iyo maxay aheeto iyo granola bahalkan oo granola bar Soomaali wax lagu dhahay ma aqaani waxyaalo oo qaleelka oo maxaa hadda kan waxa waa peanut butter lows iyo isku daray iyo waxyaalo oo I don't know how to say that granola bar Soomaali wax lagu dhahay ma aqaani marka insha Allah Somali broken English broken marka yogurkan oo Greek yogurka iyo ma sha Allah iyo granola barkan oo looska iyo laga sameeyay marka blueberry iyo strawberry way marka ani I like the blueberry but maanta waxaan isticmaalayaa maxaa dhahay natural blueberry instead of the other one so I'm using the Greek yogurt with the granola barkan oo laga suubiyo loos iyo waxyaalo qalalan adiga waxa waa cereal camal sida cerealka camal waaye oo la burburiyo loos oo laga suubiyo waaye marka looskii oo laga suubiyay lagu darsanayo yogurkan ku dari 100% waaye oo maxay aheeto whole grain also gluten free waa dadka glutenka ku jiran marka waa soo tumay marka waaweyn waa u jeedin little bit bigger so intaan meesha mooyaha ku shubay ayaan soo burburiyay wax yar waan soo gargaraacay so igu noqdo ma arkino little bit u jajabay hadda ma arkino aad uma waaweyn hadda markaan yogurka ku darsado soo wax weyn u noqonin marka taas u burburiyay marka intaana isku darsana maanta waa easy breakfast shaqada intaan ordaayo sometimes cunto badan oo too heavy uma baahnid because smoothie yaa heesana ma sha Allah marka kan iyo yogurkii intaas ma sha Allah before the early morning marka is easy wax yar oo caloosha markaas u fiican saa dhowta lunchgaada cuntid markaas ma sha Allah noqon especially dadka iscaateena oo kale hadii inta yogurka waa lagu fuuraa waa aragteen so hadii yogurka iyo waxaadi proteinkaadina ay haysatid like yogurkii wixii waa cunto calciumkii meesha caanaha waa heshay smoothie-geena waa haysataa ma sha Allah marka is full quraac amal anaka Soomaali quraac ma maleena but is full quraac ma sha Allah gaajana kuma qabanayso for while Soomaali doorkii oo kale markaas cuni kartaa maxay aheeto full lunch ma sha Allah marka intaasaan suubsanaya my quraac morningkeegi iyo hooyo iyo rush hour-keedan ku jirna marka ila fiirsada insha Allah yogurka inta ku qasa baaquligan aan ku qasay strawberry-ga dhacaanka hoos uga jira and then waa isku walaaqa mix ma sha Allah raali aad geedka canola waxa ugu reeb qufac
every time when I talk xoogaa hadalka aan badiyo qufaca waa reeraxyoonaya marka insha Allah intii aan ku daraa ka qaado saa adiga u jeceshahay ku xiranta maasha Allah and then waa isku qaqaseena hadaa rabtid you can add more fruit aad ku darsan kartaa أنا هذا ما دام blueberry yogurt محل هاي strawberry أو yogurt كلا هاي and then I'm gonna put on the top كان أقدر كورك كان أقدر يا blueberry and then blueberry spinach apple whatever you like any fruit أو كردر سكرتها ما شاء الله مرك أنا I don't like too much fruit كتا much متكي وحن جعلها إن نوع أنا مرك I'm just gonna put لبضع عن my favorite blueberry strawberry is my favorite one so أنت أنا أقدر صنايا كان كوركا uga darsamaya maadaama kii kala crunch uu yahay iyo wax yar oo flaxseed ee korka flaxseedka al iska yareeyaa la dhahay also markii I don't know dad waxaan ka maqlay markii miraha tahay is not healthy to eat it I have no idea where they get from that so let me know guys what do you think if it's healthy or it's not healthy in la tuma ama wax lagu kariyo ama biyo la dhiga healthy ku tahay la dhahay but ani I use also maxaa la dhahay chia seed raalli ka ahaada I'm keep saying flaxseed but this is chia seed masha Allah marka intaas quraacdeeda noo tahay yogurkaada yarka ahay biyahaadii smoothie-gaadi energy drink-ga soo subsata oo very healthy marka intaas soo baraaway and let me know what you guys think masha Allah a lot of people waxay ka heleen my other healthy smoothie which is related to this one marka insha Allah subscribe down below maxay ahayd aad ayaan kaga mahadcelinaa inta nagu xiran oo dhan inta kaleetana please welcome and subscribe Somali community marka saa ula socotiin my favorite part waa kana marka maanta saaka waqti uma helin inaan maxay ahayd baadka aan galo marka waxaan i tusayaa waxyaalaha aan baadka u isticmaalo maasha Allah oo bubble bath kan is very nice waxay leedahay waxyaalo badan oo ku jira milk protein for oo jirka loogu talagalay waxyaalo badan I can read all of them in there maasha Allah marka way u fiican tahay kiimika badanna mala also use a little bit of coconut ama olive oil iyo pink salt cusbo maasha Allah caagan weyn waxaan ka soo gatay Costco iyo also midkan kaleeto ayadana baad soo gala dhahay ayadana waa soo gatay marka insha Allah markii subaxdii maadaama aan ka gelin kan oo lagu dhex ridaayane waa isticmaalaa marka carafka ku siinaya caraftaas iyo markana musqushi meel aad ku raaxaysato haba maasha Allah maxaa dhahay calming iyo relaxing biyo kulul shamacaada u shido so you don't have to be light ka qaylo badan saan isha musqusheeda aad u qaylo badanta because waxa isku xiran light ka iyo marwaxada marka just to make sure in qaylada iga yaraato ay use maxay aheeto bubble bath kan baan ku shubani waxa isticmaalaa shamaca marka saan nalka iskaga damiyo you know in aan hotel joogo my own hotel aan ka dhiganaya marka meesha carafsatid shamacaada soo qaadatid any flavor shamaca jecesha caraftiisa soo qaadatid lavender maxay ahayd coconut orange whatever adiga you enjoy smell-kooda soo qaadana shamaca u shidanaysa tii carafisada oo baadka lagu dhex ridayo waa ku ridatay maxaa ka dhimanay maasha Allah relaxing no qaylo no quuq albaabka jam hoostaada ka soo xiro if you want to watch some videos you can do that in there while you're relaxing but I'm not adding to that one masha Allah marka insha Allah marka sida korkii hadhow marka smooth uu ku noqdo aad cream ugu baahan waxaan ku darsadaa aniga coconut kan ku darsadaa ama waxa saabuuni badna jirka inta kaaga dhacan oo dry uu ku noqonin marka ama olive oil whatever ay jeceshahay or any other oil ay jeceshahay ku darsan kartaa marka insha Allah that's my favorite part of my morning cake masha Allah I don't do all the time alhamdulillah marka aan waqti u helo waa subsadaa hooyo ahaan marka videoga hooyada ina isteekar gareeno masha Allah waa ogtihiin guys very busy hooyanahay marka halkaadi mar ama Saturday oo kaleeto marka adiga time u heshid ina relaxing kaadi aad leedahay do not disturb soo qaado irida ku dhigso ha soo gelinina is hooyo time don't bother me marka insha Allah ilmahana xagga ku soo xir marka khayr ayaan ii rajeenayaa enjoy my bubble bath keegi iyo morning keegi comment down below insha Allah ina ha iloobin ina subscribe gareyso channelkayga oo ku soo dhawaatiin masha Allah inta nagu cusubna welcome inta kale oo hore ula socotana make sure you share the video also you subscribe ya masha Allah community-geena Soomaalida ina is xiriirino oo is caawino is very nice haddana waxaan i tusaa guys markaan nalka ka dimiyay sidee tahay meesha masha Allah you know don't be jealous so masha Allah marka nalka laga dimiyo is very quiet calming nal malahan qaylo mana buuq malahan jamacaad yaa ku shidan masha Allah make sure you don't burn your hair
بدر شمع مدعك دقن حاجة لكم كشرح اوكي جايز هذا انك جماعة انتاسنا واجو غيركا هاي مركز السلام عليكم خير بدن ayaan ii rajeynayaa saas iyo hooyo iyo daryeelkeen ayaan isku ognahay okay inaan istaryeelno oo istakargareeno oo arano Soomaaliga iga qaldan ii soo sheega make sure you subscribe thank you guys so much musqusha mugdiga waa ka baxay